bas heer sare loo soo agaasimay oo soo qaban qaabiyay isuduwi hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Awdal Samaroon Cabdilaahi Cilmi ayaa habeennimadii xalay tahay ka qabsoontay hotel Haldoor ee magaalada Boorama ujeedada munaasabadaasna waxay daaranayd dhalinyaro kamid ah kooxaha ka ciyaara gudaha magaalada Boorama kuwaas oo ka soo gudbay darajada C isla markaasna oo soo dalaacay darajada ciyaaraha heerka labaad ee B munaasabadani ayaa waxaa soo kala goobjoog ka ahaa dad khabiir ah oo iyagu hore uga soo ciyaari jiray kooxihii hore ee gobolkani Awdal waxaana munaasabadani gabi ahaanba dadweynaha kala duwanaa ee ka soo qayb galay ay si weyn u amaaneen Samaroon Cabdilaahi Cilmi oo isagu ah wiil dhalinyaro sport isla markaasna ah wiil aad u firfircoon kaasi oo gabi ahaanba ka qayb qaatay kor u qaadista tayeenta iyo horumarinta isboortiga gobolkani Awdal waxaana lagu xasuustaa in waqtigii ugu dambeeyay oo isku duwaha ka ahaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolkani Awdal oo ku soo guuleystay koobkii gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna asaasi ku hantiyeen xulkii ka socday gobolkani Awdal taasna waxa ka hadlay mas'uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qayb galay walaalkeen Samaroon Cabdilaahi Cilmi oo saacinimadu ay sheegeen wax fara badan aan waliba la xishoonin aynu ka sheegno wanaagiisa oo samuudaya inaynu sheegno meel walba aan kaga xusno waa macallinkii qarniga dhan ee muddada gobolku jiray soo hooyo guusha maanta aynu hayno hadday tahay qarankii Soomaaliyeed ee ummadda ka dhaxeeyay ma inaan dhaafin Hargeysa halkaas lagu soo hadhay maantana caasimadii baynu indhaha u soo fiiqnay waxaas waxay ku timiday juhdigii iyo niyadwadaagii iyo wada socodkii iyo kala dambeyntii ummaddu ay kala dambeysay marka insha Allah waa taad halka ku soo gaadheen haduusan nidaam jiri lahayn la idin dajiyay halka ma idin soo gaadheen raato koox isku dhafa kolkaad aragtaan inaan ka xaafadda imika aad ku sheegaysaan in ka wanaagsan oo jooga meel kale idinkoon u yeedhin isagu waa inuu idin jeclaado muxuu idinku jeclaanay akhlaaqda la imaanaysan mudane Samaroon Cabdilaahi Cilmi run ahaantii ma cabir karo aanu qof ama aan la mid dhigi karaa oo xagga dhalinyarta wax u qabadka marka laga waramo fahanka la shaqaynta la xiriirista cid la mid noqon karta horta run ahaantii waxaan aaminsanahay inaan la helin sababtoo ah qofka waxa la gartaa marka uu xilka hayo ma aha markaan uu xilka hayn waan ogeyn sidoo wax qabad badan oo qurux badan oo faa'iido leh inuu u taray gobolka magac iyo mansabna insha Allah ay ku soo guuleysteen oo waxaananu helin gobolku helay inta ka dibna waxa wada aragtaa caawa inuu madashan balaaran uu soo abaabulay kaliya anaga ma aha waxaanu aaminsanahay inuu wax u qabto dhalinyarta gobolka Awdal oo dhan cidii wax uga baahata wixii karaankiisa taa waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu maadsantahay waxaan abaalkaaga ku gudnana ma hayno shan quruxda badan leen isku aragnay aan isku wada hor fadhino wali san iskuma soo hor fadhiisan laakiin maanta qofka jaaniska inoo sameeyay waa isaga waxaan leenahay Samaroon kuma ilaawi doono waxay noqonaysaa qayb kamid ah noloshayada oo beejka nolosha ayaan kugu qoran doonaa insha Allah taala ugu saddex baanay saddexdayada ka soo baxday ee teamka wadayna waxaan wadanahay dhamaantood jaamiciin sida la soo sheegay dhamaantood iyaguna waa wada arday ka soo baxday ama jaamacad ku jirta ama imika u soo gudbaysa jaamacada wax yar uga dhimayeen Samaroon oo ah hormuudka sportiga gobolka hormayna waa shakhsi laakiin wuxuu taagan yahay gobolkeena oo dhan waani kaliya inuu soo guuleystay koobka gobolada ilaahay ka soo koob maanta isaga iska leh mar labaad waxaan u mahad celinayaa tababarayaasha aan waxa laga yaabaa inaan ka shucuur badan oo magaca teamka ku ciyaaraan team wuxuu ahaa magacayga heeran gaari weynay muddo badan ay maanta gaadhay inagu oo inagu wax ku guuleysteen inaad koobka sidii ku guuleysteen una gudo team B laakiin anagu waqtigeegi fursad aan u heli weynay dadaal badnayn laakiin nasiibku ma marbu ku heliyaa maanta inaan noo heliyay ugu dambeyntina waxa halkaas hadalka qaatay Samaroon Cabdilaahi Cilmi duwi hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Awdal waxaana uu sheegay dadka waaweyn u sheegan dadkii dhalinyarada talooyin siino talooyinka waxa ugu horeeya kow marka ciyaartoy tahay sidii laga wada dhawaajiyay in akhlaaq la lahaado akhlaaqdu wax kale ma waxa weeyaan dabeecad aad kula dhaqantid maamulkaaga ciyaaraha wasaaradda wax ku qabanaysa ciyaartoygan ka soo horjeeday doonaysid inaad ka badisid waa inaad akhlaaq tustid
adoon cafinaynin oo kubadda fursad siinaynin laakiin marka aad rididoo kale ama aad ku fisid waa inaad kicisid raallahu ka tiraahdid ya waxyaabahaas oo akhlaaqda ay badiyaan waxay sababaan dadka daawanaya ee rabshad samayn lahaa inagoo is salaamaya markay arkaan way yaabayaan waxba fursad ma helayaan waa inta aanad ciyaarin kubadda waa inaad maamulkiina aad ixtiraamtaan tababarihiina aad ixtiraamtaan waxayna leeyihiin maqashaan kabtankiinu aad dhegaysataan qof walba mas'uuliyadda qaado kay baxaan gobolada kale waxaan kaga fiicannahay baa jirta akhlaaqdu waa ka mid waxaa kaloo ka mid ah garsoorka kooxuhu ama hargeysa ka yimaada ama burca ka yimaada ama berbera ka yimaada markii gobolkeena yimaadaan magaalada boorame kooxoo dhani kama walwalaan garsoor waxay ogyihiin cadaalad loogu qabanayo garsoorkeenaasi heer bay gaadheen ayna u kala eexan ninka magaalada degan iyo ka imanaya nin walba lugtiisu waxay goyso kooxuhu marka aad ugu farxaan markay imanayaan halkan laakiin inaga markay tagaan kooxeenu ay ka baxaan walwal baa gala runtii taasina waxaan ku dhiirigelinaynaa waxa weeyaan goboladu inay garsoorka hagaajiyaan garsoor nidaamsan oo uniformkii leh oo cadaalad u sameynaya labada kooxood ee ciyaaraysa isaga waxba kama gelin cidii badinaysa inay sameeyaan horyaal waxa kale oo ka codsanaynaa waa kan Cabdisamed maanta ka wakiila horyaalkii hore ee jiri jiray intay isku tagaan iyagoo inay barnaamij la yimaadaan ay kooxdan ku kaalmeynayaan oo ay ku daba joogayaan oo ay xaflado ugu qabanayaan runtii wadaha sida Xasan ba sheegay balwadu waa ogtiin oo de mashaakil mooyaane sport iyo balwada iskuma iman karaan marka waxa weeyaan kooxduna inay casriyoodo caalami noqotaa loo baahan yahay insha Allah tartankan biida haddii aad ku guuleysataan ilaahay uu sababo ama aad meelo fiican soo gaadhaan taa laftigeedu dadaal kale iyo anaga nagu qasbi doontaa inaan nii qabanno oo waxa ka duwan imika ka sii hordhici maynay in aad dadaalkiina ay ku xidhnaato sidaad u dadaashaan ay ku xidhnaato annaguna saaynu la garab galay insha Allah